waaye waxaan u gudbaynaa Taran Laawe. Taran Laawe sahro waxay ku sheegtay ninka gabadhii ka hor timaada iyadu waxay u bixisay taran raaji iyadu waxay u bixisay taran raaji laakiin anu waxaan u bixiyay Taran Laawe. Taran Laawe waa ninka gabadhii ka soo horbaxay jecel inuu guursado xoog badan fiirso gabadhii ka soo horbaxda ee u dagata ee uu jaanis ka helo waxuu leeyahay kala tuurno wuxuu aaminsan yahay kelmad aan u malaynayo inay ka mid tahay dhaqankeena maahmaah laakiin u baahan in dib looga tashado inay sax tahay in kale oo intay ku jiri lahaayeen jirkaaga tubta haddaad sanaa ilmuhu intay ku jiri lahaayeen korkaaga saas maxamed tubta wadada haddaad sanaadaan ilmuhu macnaha naagta arta gursa uga tag maamaada miyay saxanta anu waxaan qabaa dood in la geliyo ma saxna inaad ka qaaddo xurmada xawada adigu ilaahay ku siiyey inaad xurmada ka qaaddo oo wadooyinka daadisid ilmahaagii iyo dhiiggaagii wax ka xun maba garanaya anigu waa fool xumo waa ceeb naag walba inta guursatid gabadha yartaa meelta inta guursatid oo been u sheegtid markii uur yeelata ama ay haldan ku dhasho fur oo mid kala gurso iska soco waa aragnay rag badan oo saas sameeyey oo ujeedadoodu tahay xaaraan baan ka cararayaayo inta xaaraan gilla waa guursanaya haya guurso laakiin guurku waa inuu limid leeyahay ma waxaa waaye maxaan ku yidhahdaa ii sheeg sanadkii 20 gabdhood baad guursanaysaa 10 gabdhood war waxaas maaha Taran Laawe leeyahay qofkaas oo kaleeto dooqiisu waa gabadhii ka soo horbaxda jacaylkiisu waa gabadha ka soo horbaxda dantiisu waa dhowr habeen. Taran Laawe waa ciladaha rag badan maanta haysta oo gabdho badan ku dhibaateeyeen oon filayo in maxaan ku yiraahdaa dood weyn aan ka yeelan doono mustaqbalka dhow sababtu waxa weeye gabdhaheena maanta gabadhu waa qoys gabar kastoo taagan waa qoys inta maalmo la muujiyo in la sii daayo lagu dayaco intay ku aaminto markay uur yeelato ama ay ilaa hal cunug ku dhasho inaad sii dayso iyadoo wax sabab lahayn hadday sabab leedahay waa macquul waa khalad weey marka Taran Laawe anu ninkaasan ku bixiyay dabeecadda ka dhigta in uu gabdho badan gabadhii ka soo baxdo jeclaado jacayl beena inta u sheego iyaduna markay aaminto habeen la seexdo ama uur yeelato ama hal cunug sii daaya waa dabeecadaha rag badan ay leeyihiin ee laga digtoonaado maanta gabdhaheena aan ilaalino oon ku ilaalino xurmadooda iyo aan xafidno sababtoo hadda gabadha walaasha maanta aad guursanayso waa walaasha aadan xafidin aadan xurmayn aday ku haysataa dhibkaad geystaa waa kugu soo noqonaya sababtoo waad khiyaamayso waa khiyaamo way ku aamintay nafteedii ku dhiibtay waa ku jacaylka u sheegtay aamintay way ku yeeshay dhowr bilood inta la saxeexato markaad uur ku ogaatid ama hal cunug ay ku dhasho iyo wax cudur daar lahayn inta furto hadana mid kala doonato wallahi wax kaliita ma garanayo nin baan meel ku sheekaysanay markaas aan ila socdo wuxuu ku yiri ninkan oday oo arrimaha qoyska aad uga hadla weey waa khabiir arrimaha qoyska adiguna ayaan dhaxa xoogaa problem qoyska sheeganaysay marka ninkan ka faa'iiso waxa aad rabtay weydiiyo waa meel aan khayadaho aan balan ku lahayn ninkii intuu igu soo dhawaado wuxuu yiri saan u qabay waxyaabo qoyska hoose iyo waxyaabo muhiim inuu weydiin doono ayuu wuxuu igu yiri nin 4 naagood baan qabaa 4 naagood ayaan qabaa gabar kalena waan jeclaa oo inaan guursadaan rabaa marka seebaan ku xalilaayo arrintaa ku xaliya aad baan ula yaaba markaasaan waxaan isaga su'aal ku celiyo waxaan ku yiri 4 gabdhood hadda aad qabto meeqa sanad qabtaa 4tooda oo u dhaxaysay waa su'aasha labaad rabo intaan ku jawaab inaan ogaadaan waxa weeye jacaylka hadda gabadha kale ku haya adoo 4 qaba haddaad intaad mid furto iyada guursato ma ka baayayo jacaylkii ma ka dhamaanaya mise jacaylkaas uu socon doonaayo marka iyadana keenta mid kala jeclaan doonta ninkii intii soo fiiri wuxuu yiri
laba su'aalood oo adag baa weydiisay raalla wax dama ku weydiin maayo waa taran laawe bal fiirso wuxuu doonayaa gabar yar oo shalay guursaday oo raali oo guri u joogta inuu inta warqad u diro waa furaya oo uu furo mid kale la keensado iyadana berri furo saa isu doomariyay gabdhihiiba doonaya bal fiiri haddaan xansaday ninkii waxaan ogaaday afartaa gabdhood oo hadda uu sheegayo mid maahana saddexda kaleeto 4 sano gudahood inuu ku guursaday oo midda uu yiro 6 bilood qabo bal fiirso ninka nooca u fakaraya oo 4 gabdhood oo xalaal guriga u joogto oo haddana gabar kale jeclaanaya midda u yarna uu 6 bilood qabo macnihiisu maxay tahay waa taran laawe wuxuu rabaa inuu dhadhamiyo gabarba inta dhadhamiyo sidii maaragtay sonkortii inta dhadhamiyo inuu saga tago war waxaas diin maaha war waxaas caqli maaha war waxaas dadnimo maahan war waxaas waa dulinimo gabdhaheena ayaan saa u gelin aan ilaalino gabdhahana waxa laga doonayaa caqli bay leeyihiin garashay leeyihiin waa ka hadal doonaa barnaamijyada gabdhaha war ragga guursanaysan iska eega war taran laawe iska fiiriya war ciladaha kale waa la saxi karaa laakiin taran laawe waxyaabaha ugu liitu kamid yahay maanta mustaqbal gabdhaha baabiyay ka digtoonaada anigoo rajaynaya insha Allah ta'ala casharkeena dambe inaan ku kulmi doono waa Cismaan Sheekh qoys bile oo idin leh kulanti wanaagsan kulanti dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu